asalaamu calaykum asxaabta qaaliga soo dhawaada waan salaamayna halkan maanta waxaa jooga mustafa cabdiqaadir oo ah arday kasoo baxay dugsiga sheekh ama soos saad u taqaaneen in badan ka midi marka mustafa waxa weeye waxa uu yimi wadankan maraykanka isagoo oo helay deeq waxbarasho marka waxaan rabay maanta mustafa in wada fadhigan aan wax kaga yar weydiiyo hayaankiisii iyo safarkiisii waxbarashada siduu ku yimi maraykanka iyo waxyaabuhu bal soo maray dee markaa mustafa soo dhawo walaal cabdiraxmaan walaal aad baad umahadsan tahay waan ku dhowahay podcastkaagan iyo columbusba sharaf ayay tahay maanta inaan podcastkaaga kasoo muuqdo so thank you very much sax walaal mustafa waad mudan tahay aduguba thank you inaad bartan nagu timaado oo aad waqtigaaga qiimaale noola qaadato haddaba mustafa waxaa jira asxaab badan oo ku xidhan janankayaga iyo baraha kale ee aan bulshada ku leenahay sida instagramka iyo facebooka asxaabtaasi waxay aada noo weydiiyaan inaan bal waxuga soo sheegno sa maraykanka lagu imaado waxbarasho processka la soo maro iyagoo qaar badan ba ayna weydiinayaan su-aalo very general oo marar badan iga naxiya markay weydiinayaan markaa bal waxaan rabay maanta bal mustafa ka hor intaynaan u gudbintaa bal backgroundka wax naga yarasi taariikh nololeedkaagii halkii dugsiga hoose aad kusoo qaaday waxbarashada dugsigii sare cabdiraxmaan walaal magacaygu dhamaystir waa mustafa cabdiqaadir maxamuud waxaan hilaadii qarnigan ku dhashay magaalada berbera waxaan kusoo barbaaray magaalada hargeysa quraanic schoolkii ama malcamad quraanteedii waxaan ku qaatay magaalada hargeysa dugsigii hoose dhexe waxaan ku qaatay isla magaalada hargeysa waxbarashadii dugsiga sare ama high schoolkii waxaan kusoo qaatay dugsiga sare ee sheekh dadka qaarna ay u yaqaanaan soos hadeerna aan jeclahay loo garan ogyahay Federal Secondary School intaa kabacdi waxaan 2 sano oo kale kusoo qaatay wadanka Ethiopia oo school preparatory school aan kusoo qaatay intaa kabacdina waxaan usoo gudbay wadanka maraykanka oo aan imika jaamacadda Brea College oo ku taala gobolka Kentucky aan ka barto culumta dhaqaalaha iyo kombiyuutarada ama computer science and economics bal waxaad haddaba su-aashan weydiinaya waxa weeye goormay kugu dhalatay riyada ama fikradda ah inaad u tegi karto deeq waxbarasho maraykanka bal taa naga waran waa su-aashii in badan oo kamida dadka ku xidhan barahayaga bulshadu ayna weydiiyaan marka bal taamaad noo soo yara bal storiga ama sheekada noo sheegay kugu dhalatay fikradaasi xagay ka timi bal wax nooga yara sheeg cabdiraxmaan wallahi waa su-aal wanaagsan walaal horta weligeyba anigu waan iska impress gareyn jiro dadkan waxaan arkay arday badan oo wadanka u timi maraykanka waxbarasho oo dee obviously waa ardayda array abaarso wiil waxa jiraan jaar ahayn oo dugsiga abaarso ka baxay oo wadanka jaamacad u yimi wiilkaas ayaan habdhaqankiisa aada ula dhacay markii ugu horreysayba laakiin igumay dhalan weli inaan wadankan waxbarasho u iman karayo oo aan dee weygiisa raaco waayo waxaa igu jirtay fikradda ah in ardayda abaarso oo keliyaad ay wadankan waxbarasho u iman karaan markaa igumabay dhalan intii aan dugsiga sare ku jiray oo dhan fikradda ah inaan waxbarasho wadankan u iman karayo so markii aan ka baxay iskuulka oo waqtigaa waxay taariikhdu 2018 bilowgiisii ayaa wiil iskuulkayga ka baxay oo imika jaamacad Stanford University dhigta ayaa laga soo aqbalay jaamacad Mareykan markaas ayay igu dhalatay fikradda ah in bal horta aan weli igumay dhalan inaan waxbarasho u tago wadankii waxaa igu dhalatay fikradda ah inaan wax ka baaro jaamacadaha markaas ayay ugu horeysay 2019 horaantiisii ayay ahayd markii ugu horeysay aan fikraddan igu dhalatay ardayda soos ka soo baxda kulley waxaan jeclahay inay qaataan waxbarashadooda tayadooda aada sarreyso oo ingiriiskooda kulley ardayda wadankii joogta uu ka yara wanaagsan yahay inkastoo laga yaabo inaanu leefalka ardayda abaarso taagnayn haddana ingiriiskooda aada wanaagsan yahay xisaabtooda wanaagsan tahay iyadoo waxaasi jiraan haddana aanay fududayn inuu qofku la kulmo requirementiga jaamacadaha maraykanka oo dhan oo buuxiyo sida imtixaamada lagaga baahan yahay sida loo qoro essayada sida waxaan jaamacadaha loo fahmo systemka maraykanka san ogahay soos waxay ku shaqeysaa systemka britishka markaa bal waxaad noo sheegtaa stabiska qaatay maxay ahaayeen ama sideebaad u samaysay research sideebaad ku ogaatay waxyaabaha lagaa rabo bal taa nooga yara sheeg markii fikraddaasi igu dhalatay ugu horreyntiiba ismaan gelin yidadiilada ah inaan weli jaamacadda wadankan u imaado waxaan bilaabay slowly ayaan u bilaabay inaan research sameeyo oo magaranaysaayay aan jaamacadaha anigu ka wardoono markaa waxaan ku bilaabay wixii markaa aan haystay jaamacadahan garanayay oo waxaan tusaale ka dhigtay ardayda reer abaarso ayaan leadkoodii raacay jaamacadahay markaa ku jireen hadeer ayaan ku bilaabay oon research ku sameeyey jaamacadihii markaan gudaha u galay hal mid baa iga soo baxay waxaan ogaaday inay jaamacadahani hal mid ka midaysan yihiin oo ah in ay ardayda international studentska scholarships iyaan badankoodu
dhammaantood maaha oo waxaa jira jaamacada u gaara abaarso si gaara wax u siiya, laakiin jaamacadaha badankooda waxay isoo baxday inay hal mid ka midaysan yihiin oo ah inay magaranaysaay full scholarships ama full ride scholarships ay siiyaan ardayda international students. intaa markaan ogaaday waxaa kaloo isoo baxday in jaamacadahani ay very competitive yihiin ama sida loo galo admissionskooda ay aada u adag tahay. markaan halkaa marayay I took a step back, waxaan isweydiiyey naftayda, jaamacadaha maanta haddaan tago ma ka soo baxi karayaa, ma u diyaarsanahay inaan environmentka academic muxuu ahaye aan si fiican garanaysaa aan wax uga barto. haddaan iskuulka imika tago maanta oon apply gareeyo ma la soo aqbali karayaa, do I stand a chance? su-aalaha noocaas ayaan isweydiiyey. marka waxaa isoo baxday waqtigaas aan joogay in aanan weli u diyaarsanayn, oo waxaan arkay in jaamacadahani dee caliberkoodu uu xoogaa ay iga sareeyaan oo waxoogaa preparation laiga baahan yahay xaggayga. marka iskumaan ma garanaysayay niyadda iskamaan wadagelin weli, waxaan bilaabay slowly inaan anigu nafteyda dhiso. waxaan mathematicskaygu dee aada bay u wanaagsanaayo, soos waxaa lagu yaqaana science-ka iyo fieldkaskani aada ugu wanaagsan yihiin. waxaan aada u saaray awoodda inaan English skillskayga, hadday noqoto reading skillskayga, hadday noqoto writing skillskayga, oo dee wadankan sida wax looga qoro iyo sida wax looga aqriya way ka duwantay waxaan soo bartay oo anigu British system baan wax ku bartay. halkanna waxaa dee American system, dadka qaar baa gaadhsiiyaba inay there is American way of writing bay yidhahdaan. waxaad garatay in aad u baahantahay preparation ama diyaargarow badan oo aad luqadda ingiriisiga iska dhisto oo aad processka fahanto. okay, marka bal maxaad samaysay si aad luqadda ingiriisiga iskaga dhigsto? bal waxyaabaad samaysay noo sheeg, privataad gashay, maxaad samaysay si aad iskaga dhisto ingiriiska? markaan ka hadlayna waxaan ka hadlaynaa readingkan ka hadlaynaa, waxaan ka hadlaynaa writingkan ka hadlaynaa, waxaan ku hadlaynaa ku hadalka ingiriiska iyo fahankiisa. marka bal waxyaabaad samaysay nala yara wadaag. writingkaygu de iyo readingkaygu level u gaadhsiisnaa aan ma garanaysay aan awoodo inaan wax aqriyo oon dee anigu iskay aan research u samaysto, oo markaa umaan baahnayn inaan private dib u galo, dee already high school graduate baan ahaa moogta. marka waxaa keliya ateen u baahnaa waxay ahayd inaan fahmo patternka ay jaamacadahan sida ay dadku wax u qoraan, college admissionska iyo dee college essayska si wax loo qoraa ay leeyihiin, oo jaamacaduhu dee abaarsabadood ka warhaysa waxay leedahay counselor bay leedahay de wax kalaba qaban oo essayska dadka ka sharban gareeya oo magaranayay ardayda jaamacadaha usoo baara. marka anigu waxaan ku bilaabay ugu horeynba inaan research sameeyo oo magaranayay waxyaabaha aan tallaabooyinka aan qaaday ee ugu horreeyay waxaa kamid ahaa inaan articles badan aqriyo. muxuu ahayey waxaan tooraliba miidiyihii soomaalida waan shift gareeyo, waxaan u wareegay xagga iyo miidiyaha westka. marka journalska caanka iyo CNN iyo magaranayay resources kale oo sida Princeton Review oo jaamacadaha aada uga hadasha, articleskaasaan aada u akhriyay, bugaag baan akhrin jiray. dee waqtigan waxaan processkan ku jirayna iskuul baan ku jiray oo dee waxbaan dhiganayay weliyo maan waqti umaan hayn badan, laakiin haddana waqti baan u samayn jiray maalin kasta, oo waxaan isku dayay inaan maalin kasta waqti 2 saacadood aan magaranayay processkan I take a step forward, you know. marka waxyaabaha ugu horeeyay aan sameeyo waxaa kamid ahaa inaan articles badan akhriyo, waxaa kamid ahaa inaan si aan listen skillskayga aan u dhiso, inaan videoyo badan oo magaranayay sida CNN oo kale, Fox News iyo adu basically American way of living ayaan isku dayay inaan aan soo dhexgeliyo. marka saasaan ku bilaabay. sax okay Mustafa, inteebay kuu qaadatay inaad preparationkaasoo dhan gasho ama shaqadaasoo dhan gasho? intay kuu qaadatay? ma sanado, ma bilo? bal lana yara wadaaganta kuu qaadatay iyo xilligaad ogaatay inaad diyaar u tahay processka inaad gasho. waa si wanaagsan walaal. markii ugu horreysay aan niyadda igaga soo dhacday ama igu dhalatay fikirkan waxay ahayd 2019. 2019 ilaa 2021 bishii March oo ahayd markii jaamacadaha laga soo aqbalay. intaaba dee waan ku jiray oo processku waan waday, laakiin approximately waxaa la oran karaa sanad iyo badh ayaan dee nafteyda dib ugu noqday oon isu soo dhisayay, oon jaamacadaha u diyaar garoobayay, oon jaamacadaha apply gareynayay, imtixaanada loo baahan yahay oon aynu ka hadli doono yar kadib aan isu diyaarinayay oon magaranayay aan xilligaan qaadanayna ay ahayd. marka adigu approximately 1.5 years badan. marka sanad iyo badh kuu qaatay. waa muhiim inaad ogaataan intay kuu qaadanayso inaad
diyaar noqoto. Mustafa siduu sheegayo wuxuu ka soo baxay dugsiga soos, xisaabtiisu way dhisnayd, ingiriisigiisu aad bay u dhisnayd marka la garab dhigo ardayda wadanka joogta, iyadoo waxaasoo dhan uu haysto iyo waxaasoo advantage haddana wuxuu qaatay ku dhawaad ilaa sanad iyo badh inuu iska sii dhiso ingiriisiga si uu diyaar ugu noqdo. Okay Mustafa, waxaad daba samaysa waxaasoo dadaala, bal waxaad la yara wadaagtaa asxaabta ama aad u sheegtaa halkeed ka bilowday. waxaan waa badweyn oo marka laga yaabo xitaa adigoo inaad diyaarta wax laga yaabo marar badan inaanadba aqoon ama ay kugu adkaato halkee laga bilaaba. oo su-aashaasi waa mid ay arday badan i weydiiso ama dad badan oo ku xidhan channelkayga. marka halkeed ka bilowday, bal wax nooga sheeg, maxaad samaysay markii ugu horreysay tiri malaha maantaan diyaarahay, bal taa sawir naga yarase adigoo bal noo sheegay historigaas se u dhacday iyo bal ha. walaal su'aal wanaagsan Cabdiraxmaanow. markii ugu horreysayba waxaan ku bilaabay inaan dadkii la xidhiidho jaamacadaha wadankan u yimi, oo waxaan la hadlay dhowr arday oo dugsiga abaarsa ka soo baxay oo jaamacada markaa wadanka ku jiray. information dee dadku markaad la xidhiidho haddii ay ku arkaan inaad magaranaysaayay qof dadaalaya tahay oo dee magaranaysaayay wixii garanaya oo dee weygii haya way ku caawinayaan maogta. marka dadkaasaan la hadlay, dhowr arday oo abaarsa ayaan la xiriiray. waxay ii sheegeen in magaranaysaayay dee something hard wax in la sameeyo ay adag tahay laakiin is doable marka waxaan ardayda jaamacadahooga badankooda waxaan isticmaalay jaamacadahay tegeen ayaan ku bilaabay, oo waxaan websiteskoodii baan tegey, jaamacadaha research baan ku sameeyey. waxaa jira jaamacaduhu waxay soo dhigaan essays-kii hore ee ardaydii laga aqbalay iskuulka ayay website-yada kusoo upload gareeyaan. essayadii baan la soo degay, essayadii baan akhriyey, waxaan arkay sida dadkani wax u qorayaan iyo seen wax u qori jirnay inay wax totally different ah ay yihiin. marka waxaan bilaabay inaan writing skillskayga dhiso, oon jaamacadaha intaana hortaba aanan sii gudagelinba markaan arkay jaamacadaha dadkiisa wax u qorayaan, waxaan arkay weaknesskayga ugu horreeyey inuu yahayba essays-ka sida loo qoriyo. marka essayskayga baan dib ugu noqday, waxaan waqti igu qaadatay inaan essayskayga soo perfect gareeyo. marka halkaa markaan essayskayga iska soo dhisay, waxaan essayo drafts baan soo sameeyey, waxaan essayadii soo qaatay, ardaydii baan kula soo noqday, waxaan ku uri bal niyow soo eega. marka dadku markay arkaan inaad dee resourceful tahay oo magaranaysaay aad actually you can do the work, way ku caawinayaan maogta. marka ardayda way iisoo jawaabeen, si fiican bay caawiyeen, waxay essayadii bay soo review gareeyeen, waxay soo siiyeen comments iyo suggestionskii baan ayaan dee wax ku sii sameeyey, essayskii waan sii modify gareeyey. marka stepkii koowaadaan qaaday wuxuu ahaa horta bal inaan barto sida jaamacadahani ay magaranaysaayay wax admissionskoodu ilaan uu ka duwan yahay wadankeena. imika jaamacad haddaad xarayso waxa laga yaabaa in markaaba ay kusoo qabsho jaamacadda oona dee waxyaabo badan process ba aanad u baahnayn, laakiin jaamacaddan waxaa laga yaabaa inaad waxeedii dhan haddana adagoo magaranaysaa requirementskii o dhan buuxiyo haddana ay kusoo diidaan. marka waxaad u baahan tahay as an international student, waxaad u baahan tahay you have to stand out waa inaad ka dhex muuqataa dadka, waa inaanad noqon dee haddaad noqoto typical American college student, wax dee qof caadiya oo ay storieska arkaan markasta ah, waxba adigu kuma soo kordhinaysa value iyo diversity bay eegayaan dadkan. marka adigu maxaad kusoo kordhinaysaa meesha? storygaaga waa inaad you have to be able to convey your essay like your story, waa inaad sheekadaada u gudbin kartaa dadkan, waxaad kaga duwan tahay dadkii waxaad kaga duwan tahay, waa inaad meesha la timaadaa oo magaranaysaay dee aad tustaa dadkan inaad that you're worth the investment, inaad dee dhaqaalahan ay ku gelinayaan iyo scholarshipkan ay ku siinayaan inaad u qalanto actually, waa inaad magaranaysaay tustaa. marka stepkii koowaadan qaadayba intaan wax kalaba gelinba waxay horta bal inaan writingkayga aan dhiso. waxyaabaha resourcekan isticmaalayna waxay ardaydii hore wadanka tegay ayaan la xiriiray stepka koowaad. dabadeed waxaa jira resources badan oo sida Princeton Review oo websitekaas mar hore sheegay, US News and World Ranking Report isaguna mid website la yiraahdo ayaa jira. intaa markaan kasoo gudbay waxaan jaamacadihiiban list ayaan samaystay, aan markaa kusoo naarowgareeyey ama aan kusoo koobay jaamacadaha Fulbright scholarship siiya ardayda international studentska ah. oo taa micnaheeduna waxa weeye haddii international studentska ay siinayaan Fulbright scholarship, jaamacadahani waxa weeye acceptance ratekooda ama aqbalaadoodu waa 30% ama wixii ka hooseeya. marka you have to be ready for the world. marka waan sax, that's a good point Mustafa sameeyay. yara jeclaan asxaabta u sharaxo. waxaad arkaysaa arday kula soo xoreysa jaamacadda Princeton baa petroleum engineer haysta ama MIT baa haysta chemical engineer. marka waxaan leeyahay jaamacadahan aad ka sheekeynayso
waxa kala dad aad u tiro yar. Jaamacadaha waxa laga yaabaa in lacag badan ku siiyaan dad gasho, laakiin sida loo galaa acceptance-kooda waxa laga yaabaa in noqdaan 4% iyo wax ka yar 10%. Marka waxaa muhiima suu Mustafa sheegay inaad jaamacado top tier oo aad u wanaagsan baa jira, acceptance-kooda ama qaadashada qaaniga ardaydana ay saa usii adkeyn laga yaaba inay 30% tahay. Marka taasi waa mid muhiima. Soco Mustafa. walaal intaa marka laga gudbo waxaa jira iyaguna jaamacadahan aada xaraynayso ee deeqda waxbarashada ku siinaya waxay eegayaan diversity bay eegayaan. taa macnaheedu ma aha haddii aad Soomaaliya ka timi inay automatical admission tahay ama automatic admission ay tahay maaha. waxa weeye in dadkani waxay eegayaan diverse student body ayay doonayaan. At the same time qofkii dee qof kasta u haysta credentialska sidato ma garanaysa ayay muxuu ahaa SAT ha noqoto ama high school transcript ha noqoto ama TOEFL ha noqdo, waxaan oo dhan waa lagala sameeyey. waxyaabaha markaa aan ardaydan u sheegi lahaa qofka stand out ka dhigaya ama inuu ka dhex muuqdo dadkii kasoo ka dhigaya waxa weeye waxyaaba ka mid a storygaaga waana sheegi karaysaa, waanaad gudbin kartaa, waanaad dadkan ku qancin kartaa, admissions officerka waanaad ku qancin kartaa sabab uu kugu aqbalo. dadka thousands of people ka soo xariisanaya from around the world, sabab uu adiga kuu doorto waanaad dee siisaa moogta. kawan hadaba bal marka taa samaysay maxaa kale koray taamada iyo wixii seed u ogaatay processka ama essayga jaamacadda seed u bilowday, waxaan jeedaa applicationka jaamacadda seed u bilowday, waxaa jira waxaa common app miyaad ka shaqaa? processka anigu 3 qaybood baan u kala qaybin lahaa ama 3 phase baan u kala qaybin karaynaa. phase koowaad waxa weeye preparation phase oo waa phase kan ka hadalnay. phase ka labaadna waxa weeye waa xilligaad xareynaysa ama application processka application processka xilligaad galaysay oo dee application season bay yidhahdaan. marka stepka saddexaadna waxa weeye dee visa processkii iyo magaranaysa transition timekii iyo xilligaad waqtigii halkan imanaysay. marka ugu horeynta waa inaad horta research samaysaa, waa inaad naftaada la fadhiisataa, aada ogaataa magaranaysa ayay strengthskaaga iyo weaknesskaaga waa inaad ogaataa ama meelahaad ku wanaagsantahay meelahaad ku xun tahay. so waa inaad aad iska soo dhistaa meelaha aad isleedahay waad magaranaysa ku yar liidataa. weliba ardayda anagu dee haddaanan reebaarsahayn waxaa caqabad kalena hortaagan oo ma haysano college admissions counselor ama counselor high school counselor ma lihin oo badanka dee iskuulka abaarso waxaa jira counselor baa badanka jira oo ardayda usoo naarowgareeya jaamacadaha oo magaranaysa ku maaj gareeya jaamacadaha ardayda oo markaa dee halkaa processka ka caawiyo. laakiin ardayga aan iskuulka abaarsi tegin caqabada koowaad ee ay tahayba inuu ka gudo waxa weeye inuu isagu jaamacadihii soo helo. marka jaamacadihii si aad u hesho dee waa inaad research samaysa. research si aad u heshana aad u samaysana waa inaad ogaataa, waa inaad luuqadii dee garanaysa ood wax ku akrin karaysa. oo waxaad arkaysaa qof kula soo xiriirayo ku odhanaya jaamacad baan doonaya inaan galo laakiin aan akhrin karin. haddaad linka u dirto wuxuu kugu odhanaya ma garanaysa waxaan meesha ku qoran ma gafahim. marka dee seebaad doonaysaa like how do you want to come here and study in the States like صح like it doesn't add up, you know. marka waa inaad dee waa inaad wixii akhrin karaysaa ma garanaysaayay adigu researchka qaybtiisa ugu weyn aad samaysan karaysaa. laakiin dadku way ku siin karaan directions laakiin adigu hawsha badankeeda waanaad qabsataa. intaa marka laga gudbo waxaad usoo gelaysaa xilligii admissions phase-kii baa lasoo gelaya ama xilligii application seasonska. marka waxyaabaha the main componentska applicationka ku kooban waxaa kamid ah kow waa inaad high school transcript haysataa. laba waa inaad standardized testka 4 imtixaan ama 5 imtixaan imika mid baa kusoo biiray ee waaweyn ee lagu qofka lagu qiimeeyo luuqadiisu halkay taagan tahay ama mathematics skillskooda lagu evaluate karayo. waa inaad mid haysataa. waa SAT, ACT, TOEFL, IELTS iyo Duolingo oo imika isaguna cusub. oo anigu berigii waxaan soo qaatay SAT iyo TOEFL baan kasoo qaatay wadanka Ethiopia. laakiin haddeer ardaydii wadankii joogta uma baahnaba inay Ethiopia tagaan oo SAT-ga waxaa laga sheegay in abaarso imika ay test center tahay. sidoo kale school Burco Academy la yiraahdo Burco ku yaala magaalada Burco uu isaguna test center yahay. marka ACT I think Burco ACT-ga loo qaataa malaha abaarsana SAT-ga abaarso iyo labadaba imika labadaba waa lagu qaataa imika SAT labadaba wadankii waa available. marka ardayda wadankii dee haddeer doonaysa inay processkan soo galaan ma baahna inay safraan sidaydii oo kale hasalka ay maraan oo dee door step uu yeelaa waxiiba way magaalooyinka Carabiga soo Afrika ay soo qaadanayaan. haddii aanad awoodin marka SAT oo yara qaali ah normally iyo TOEFL waxaad qaadan kartaa Duolingo oo ah imtixaan imika cusub oo ilaa 2 sano jiray. imtixaankaas ayaad gurigaaga adoo jooga qaadanaysaa oo kana jaban imtixaanadan kale.
oo gebigiisuba like less than $50 baad ku qaadanaysaa. Waana as many times as you want waad qaadanaysaa, dee waa wax accessible ma ogti. Marka waxaan anigu aaminsanahay in dee ardaydeeni waddankeeni joogta qof kasta uu dee $50 heli karayo 2 iyo 3 jeer baa intii aad scorekaagu dee meel fiican gaarayo waad qaadan kartaa, waad ku celin kartaa. Imtixaanada markaad soo hesho transcriptkaagina aad haysato, waxaa stepka ku xiga waxa weeye recommendation letters inaad ka hesho macallimiintaada high schoolkaaga. At least 2 ayaa badanka la tixgeliyaa oo ama ay jaamacadaha badankooda doonayaan, iyo counselor. Muhiimadda ugu weyn ama mushkiladda ugu weyn ee na face garaysa haddaan nahay ardayda aan dee kasoo bixin dugsiga Abaarso waxa weeye counselor recommendation letter aad noo qorto. High school teacherskaaga waad helaysaa ama English iyo mathematics teacherskaaga ba kuu qori kara, laakiin counselor iskuulkiiba ma laha counselor. Marka counselor ciddii noqon lahayd ee recommendation letter kuu qori lahayd ayaa caqabad kale ah. Marka anigu waxaan stepka marka halkaa marayay waxaan high school principalkaygii ayaan la xidhiidhay oon ku uri dee iskuulkeena maadaama aanu lahayn counselor u gaara dee jaamacadahan magaranaysaa ardayda ka caawiya inay jaamacadaha tagaan, dee adaa positionka buuxin karay. Marka isaga ayaa iigu adeegay halkii magaranaysaa positionka ii buuxiyay counselorka, isaga ayaa ii qoray. Taa lafteedu mushkilad kale ahayd oo dee inaan iyaga laftooda dib ugu sharaxa ayay noqotay inaan macallimiintayda iyo systemkan dee wax loo qoro way ka duwan yihiin recommendation letterska aad u qorayso waddan kale. Jaamacadahan way ka duwan yihiin sida wax u qoraan. Marka aniga lafteedu inaan dib u noqdo oo aan recommendation letterska sida loo qoro aan soo barto, dabeed macallimiintayda aan dib ugu tago oo aan magaranaysaa u sharaxo sida aan doonayo dee jaamacadahan inay dee inaan haddii aan doonayo inaan chance fiican haysto oo dee jaamacadahan laga soo aqbalo sidaan doonaya inay u qoraan ayaan magaranaysaa u sharaxay. Marka iskuulkayga waan ku noqday, waan usoo sharaxay, recommendation letters bay qoreen. iskuulkaaga waxaa soos iskuulkaygu saan hore u sheegay sheekh ayaan kasoo baxay anigu dugsigii sare sheekh. Marka recommendation letterskana macallimiinteydii ayaa iisoo qoray. Intaa haysato waxaa loo gudbayaa jaamacadahan intaasoo keliya ma tixgeliyaan oo waxay isticmaalaan wax la dhahdo holistic approach ayay isticmaalaan oo magaranaysaa ah componentska applicationkaaga oo dhan ayay tixgelinayaan, ma tixgelinayaan hal factor oo keliya. Haddii SAT aad haysato perfect SAT scores ama SAT scoreskaagu ay yihiin 1600 like waa meesha ugu sarreysa la gaari karayo 1600. haddii aad 1600 SAT score haysato oonad laakiin haysan extracurricular activities ama iskuulka marka laga yimaado academics waxyaaba ka baxsan aanad samayn jirin, they are not interested in you anymore. So marka waana you have to balance, you know. Waanan ogahay ardayda badankooda way ku noqon kartaa caqabad wadankii jooga aan boarding system dee ku noolayn ama boarding schools aan joogin inay extracurricular activities sameeyaan, laakiin waxaa jira aad samayn karto adoo Hargeysa jooga, sida inaad Hargeysa Orphanage Center oo kale aad volunteer ka noqoto. Waxyaabahaas oo kale dadkan jecel yihiin. sports oo kale aad ka shaqeyn kartaa. Sports oo kale ayaad ka shaqeyn kartaa, waxyaabo badan oo samayn kartaa jira. Marka shaqada lafteeda haddaad meelo ka soo shaqeysay cafes iyo waxyaabo kale ayaad isticmaali kartaa. Marka anigu dugsi boarding ayaan kasoo baxay. Marka waxaan isticmaalay waxyaabihiin qaban jiray markaan iskuulka ku jiray, sida clubskan ka qaybta ahaa, leadership positionskan aan soo qabtay. Waxyaabahaas ayaan isticmaalay oo aan emphasize gareeyay. clubkan dad qaar baa laga yaabaa inay qalabtaan ay moodaan clubka soo tunto. clubku waxa weeye markaad iskuul ku jirto waxaa jira organization iyo urura jira iskuulka dhex jira oo sida science oo kale ama physics oo kale ama chemistry oo kale ardayda lagu baro ama la soo yimaado. Marka kuwaas club loo yaqaana marka laga hadlayo manhajka Mareykanka iyo luqadda Mareykanka. Exactly. Marka waxaa jira aniga iskuulkayga oo kale wuxuu lahaa environmental club oo kale ayaan ka mid member ka ahaa. Islamic committee oo kale jiray. waxaa kamid ah anigu volleyballkan aad u ciyaari jiray, volleyball teamkan ku jiray. Waxyaabo badan oo dee iskuulka laga dhex qaban karayo ayaa jiray. Marka clubs waa iska organization ama urur weeye ay mission u midayo ama aragti guud ay midayso ama waxyaabo common magaranaysa goals leh. Marka organizationskan ku jiray iyo muxuu ahaayay activitieskan qabtay iskuulka ayaan emphasize gareeyay oo dee aanan si plain ah u sheegaynay, laakiin aan storygayga dhex gelinayo oo aan leeyahay waxyaabahan ayaa qofka aan ahay iga dhigay maanta oo dee halkan soo gaarsiiyey. waxyaabahaas aanan hadhow toole iskuulkan markan imaado ama jaamacadan aan xareynayo aan kusoo kordhin karaya. Marka storygaaga saasaad u iibinaysa. Aan ka yara dhex karo namaad sheegin SAT-ga ama TOEFL-ka saad u gashay
xalka joogtay marka miyaad noo sheegaysa hadhow mise waad idilooday ha may waan kusoo noqonaya marka componentska si guud waa intaan soo dul maray waa transcript high school transcript standardized testskaas oo SAT iyo TOEFL iyo IELTS iyo imtixaanadaas waa inaad haysataa recommendation letters iyo extracurricular activities the one and main important component of your application waa essaygaga like jaamacadahani waxay isticmaalaan sheekay ku odhanayaan qor around 650 words ayay ku odhanayaan qor marka jaamacadaha badankoodu waxay aada u emphasize karayaan essaygaga more than anything else you know haddii dee test course qof kasta u haysta high school qof kasta uu ka qalin jabiyay obviously dee waxaad soo xarinaysaa college waaran ha sheekada weliba sheekooyinka haddii aan yar sheego inagu waxaynu badankeenu ka imaanaa wadan burbur iyo dagaal uu ka jiray 30 sano u dambeeyey waxaan ogahay in badanooda kamid ah Soomaaliland baan degan oo taaga jirta ama Soomaaliya joognaa marka la eegayo Mareykanka oo kale dowladda Mareykanku Somaliland iyo Soomaaliya iyadoo mid bay u yaqaaniin marka kulli waxa laga yaabaa in badan oo idinka kamid ah familigiinu ay rafaad iyo xiriyo quunti soo mareen in dagaal soo mareen in waxa laga yaabaa xaafadiina adigu aad marar badan batahay qofka kaliya xitaa caawiyo hooyada marka sheekooyinka waxaad sameyn kartaa oo kale inaad saas oo kale u lifaaqdo oo storyga waxa si mustafiga sheega waa muhiim storyga oo inaad ka sheekaysaa waxyaabii ku soo saameeyay adiga markaad yaraydo haddii ahayd qofkii curad inankii ama inantii curad reerkiina oo hooyadaad soo shaqaynaysay oo aad waxyaabadan soo martay eebahayo kale aanu idinla joogin ama aanu noolayn oo waxyaaba noocaas oo kale martay waad ka sheekaysaa waayo waxyaabahaasi waxay tusayaan iskuulka inaad tahay qof soo maray adigu soo dadaalay oo caqabado badan la soo kulmay caqabadiina kasoo dheebhayo soo guuleystay marka taasuu mustafiga sheegaa sheekada ama storyga lagu qoriyo essayga yeah that's actually true Cabdiraxmaan stories inagu haddaynu nahay dadka ummadda Soomaaliyeed ama dhulkii Soomaalida ardayda wax kusoo bartay qof kasta story buu leeyahay by default like waxaan xaafadda qof walba waxa weeye wadankeenu dee dadkoodu waa iska middle class ama low income class ay iskaga badan yihiin marka qof kasta struggles uu soo maray marka muhiimaddu waxa weeye inaad struggle soo martay maaha muhiimaddu waxa weeye muhiimaddu inaad sheegi karayso struggleska soo martay iyo dee si creative inaad u sheegi karayso wixii oo dee leedahay waxyaabahaas soo maray oo ka soo badbaaday dee jaamacadda markan imaadana uu easy ayay noqon doontaa inaan magaranaysa environment kasta aan la qabsado oo dee waxyaabahaas aan soo maray already sax marka ta kala dooni mid aan isla dib ugu yar laabana waxaa tiri Mustafa adigu maamulahaagiiba ku qoray recommendation letterka marka waxa laga yaabaa haddii aad tahay arday ka imanaya iskuulka yeela Hargeysa oo dugsi sare waxa laga yaabaa inaanu maamulahaaga iyo macallimiintaadu midna aanay fahansan Ingiriisi badankooda aanay fahansaneyn oo qorayaan waxa recommendation waxaad ka sheekanaysaa marka recommendation oo kale marka inta meel la sheegayo waxaad u baahan tahay in qof ku dhow oo ku fahmayo oo mentora oo sheekada yara fahansan inaad haysato in badan kamid waxaan hubaha inaad haysataan family members ama ilmaadeeradin oo idinka waaweyn ama asxaab xaafada oo aad la yara shaqaysaan oo Ingiriiska yara fahansan oo jaamacadaha ku jira marka qofkaas oo kale wada kartaa qor recommendation letter oo ciidan hebel wax iga yara sheeg ama iga sheekay marka taasina waa mid u baahan yara ilaamiyo waa sidaas sheegtay walaal Cabdiraxmaan marka inta markan kaga gudubno application componentska aan u soo noqdo SAT-ga oo su'aashay iyo TOEFL-ka saan soo qaatay dabayaqadii 2020 ayaan u safray wadanka Ethiopia dib haddaan u yar noqdo sidaan isugu diyaariyay imtixaanku waxay ahayd muddo sanad ku dhowba waxaan anoo iskuul ku jira ayaan isku dayi jiray inaan magaranayay waxaa jira resources badan baa jira oo sida Khan Academy oo kale ayaad ka heli karaysaa past examskii SAT-ga oo kale marka imtixaanadaas inta na soo dego aan soo daabacdo ayaan anigu nafteyda istijaabin jiray marka levelkaygu imtixaankii ugu horreeyey intaan qaatay oon fadhiistay oon dee imtixaankii ka wada shaqeeyey ayaan arkay dee halkan marayo marka waxaan isku dayay meelaha the weaknesseska saan horeba u sheegay aan iska soo dhiso dabadeed imtixaanadaas past paperskaas umaan isticmaali jiray anigu wax fancy ah oo books waaweyn iyo waxaa ma soo iibsan oo dee dhaqaalahaba ma haysana haddaynu wadankii inagu dadkaa nahay oo xitaa even waan isku dayay inaan buugaagta helaan marmar laakiin imay suuragelin inaan buugaagta helo marka waxaan isticmaalay un imika waxaan ku jirnaa information age baan ku jirnaa wax kastaaba waa accessible waxa dee farahaagaasa kaa xiga iyo computerkaagaas ayaad wax walba ku samaysan karaysaa marka Ethiopia ayaan magaranayay kusoo qaatay imtixaanka markaan isku diyaariyey oo resourcekan isticmaalayna waxaan Khan Academy oo kale kamid ahaa YouTube videos baan aad u daawan jiray marka Ethiopia ayaan kusoo qaatay oo inagu test center hadeen ama xarun loogu qaatay imtixaanka wadankii kuma taalo ama Soomaaliya ha noqoto ama Soomaaliya ku taala
ha Imika ha inta la imika way ku taalaa oo dee berigaas anigu aan waday processka kuma oolin test center kuma oolin marka waxay noqotay inaan u safro Ethiopia oo dee xagga iyo jigjiga iyo wadankaasi maro oo dabadeed aan Addis Ababa tago dabadeed imtixaanka halkaasaan ku qaatay bil ayay igu qaadatay inaan labadii imtixaan anigu marka SAT iyo TOEFL baan soo wada qaatay marka labadii imtixaan waxoogaa baa udhexeeyey appointments baa lagu samaystaa imtixaanka marka 2 weeks baa udhexeeyey labadeeda imtixaan xilliga qaaday bal date ka sheeg waxay ahayd around October bay ahayd laakiin imtixaanka sanadka oo dhan waa la qaataa labada imtixaanba xilligii aad doonato wada helaysaa oo dee waxaad website-kooda aad tagto oo EST mise ETS something like that ayaa la iska register gareeya TOEFL-ka SAT-gana college board website dheeraado ayaa la iska register gareeya marka waad heli karaysa haddaad SAT Google search ku samayso waad helaysaa resource-ka dee qofku all you need is to be able to read something you know wax kasta waad si fiican baad u arkaysaa October soo qaaday adu around October xilliga around October baan soo qaatay xilligaasna waa xilliga jaamacadaha markaas la xareeyo bilowga jaamacaduhu badankooda admissionsku waxay furmaan around August 1st bay furmaan waxayna socdaan ilaa January 1st marka intaasoo dhan waxaad haystaa a span of like 4 months ayaad haysataa markaa inaad ku xareyso jaamacadihii oo dee liiskaagii ku naaro garayso waxaa jira jaamacado marka hore aad iska xiiseynayso laakiin markaad dee soo naaro garayso aad aragto inaanad fit ahayn oo dee jaamacad kasta laguma samayn moogta that's one other thing you have to figure out you know marka jaamacadahan aad baarayso waa inaad ogaataa jaamacadaad ku succeed garoobi karayso oo dee potentialkaagan aad kusoo saari karayso magaranaysaye aad dee good fit u noqon karayso marka jaamacad kasta haddaan imika qofka laga soo aqbalo Harvard oonu laakiin dee good fit u ahayn marka environmentka inaanu survive garoobin baa laga yaabaa ama aanu thrive garoobin marka jaamacadaha muhiimadda aan u leeyahay researchku waa muhiim waxaad ogaanaysaa jaamacadaha missions bay leeyihin jaamacad kasta mission bay leedahay waxaad ogaanaysaa jaamacadan missionskeeda iyo storygaaga ma plan garan karaysa oo ma isdhex gelin karaysa that's what make your application strong you know laakiin dee horta applicationkii nomad sheegmad kasoo bootaan maranaya applicationka goormaad bilowday applicationkii waxaa baltaamaad manawadi bilowdaa maranaya bal dusha kastoo applicationku sidaan soo sheegay waxaa horta la isticmaalaa jaamacadahan waxay isticmaalaan common application wax la idhaahdo common app haddaad search garayso waad helaysaa common app me in badan asxaabta kamid ah oo ay la socdaan in badan oo kamid ah asxaabta la socda channelka way ogyihiin oo aan kaga hadlay fiidiyoya jiraan kana common app linkana xagoosan usoo dhajiyey marka haddii aanad common app garanayn fiidiyogan soo dhajinay ku jira channelka daawo YouTube-ga story aad aragto waad arkaysaa linkiyada common app kusoo dhajinay marka waxaa jira common app-kaad waxaa jira common app iyo coalition app baa jira iyagu waa isku midun isku shaqoon bay qabtaan marka bahladaas waxay ku ogolanayaan jaamacado badan multiple colleges mar kaliya wada xareyso marka common app-ka ayaan mainly isticmaalay jaamacado waxaa jira iyaguna application u gaara leh sida jaamacadda MIT oo kale iyagu kuma jiraan common app-ka kuma jiraan Berea College oo ah meesha imika aan dhigto iyaduna ma laha common app-ka kama mid aha marka application gaar ah oo dee iyaga u gaara ayaad buuxinaysaa iyagana si gaar ah ay ula xiriiraysaa marka common app-kaas ayaan jaamacadaha badankooda ka xareeyey around October ilaa November one finals gareeyey magaranaysaye jaamacadahan xareynayey marka after November waxay noqotay inaan decisionskii sugo oo waxaa jira 3 different seasons bay leeyihiin oo waxaa jira early decision 2 early action wax la dhaha isagoo jiro laakiin iska minor ah iyo regular decision information mad qoysta Mustafa dadka waxa ay fahaysteen marka aan yara bal dusha ka yara maro timeline Mustafa waxa tiri waxay ku qaaday sanadii bar inaad soo diyaariso ingiriisiga iyo qoraalkaaga halku taagnaa iyo readingka iyo wax kasta kadibna markaad history maanta qoraalkaagii waad yara diyaarisay waxaad haddana process baad bilowday jaamacadaha kusii kala baranayso ardayda jaamacadaha dhiganaya baad research kusii samaysay taa markaad samaysay sidoo kalena waxaad on the side ama dhinaca kale ka waday imtixaanada SAT-ga iyo TOEFL-ka isku diyaarinayso iyo ACT-ga dhanna waad isku diyaarinayso wixii khayraad ama resource online aad hesho ayaad waday markaad adigoo waxaasoo dhan iskarab wada ayaad imtixaankii SAT-ga iyo ACT-ga ama TOEFL-ka ka soo qaaday Ethiopia applicationkii already common app-kaad ka bilowday ku socday markaad intaasoo dhan soo qaaday baad applicationkii aad common app ka waday baad haddaba soo gabagabayso finalize garayso resultskii baad gelisay soo ma aad ka soo qaaday ACT-ga application saasoo ku buuxsamay sax sii socday haddaba halkaa markaad marayso applicationska buuxiso wax walba finalize garayso waxa ku xiga on dee inaad decisionkii sugto halkaa waxaan doonayaa inaan hal qodob emphasize garayo oo jaamacadahan
researchka markaan leeyahay waa muhiim. Waxyaabaha kamid ah aad ku ogaanayso waxaa kamid ah jaamacad kasta waxay leedahay admissions officer u gaara, regional admissions officer waxay yaqaanaan. oo haddii aad for example kasoo jeedo Africa, waxaa u jira jaamacadda, waxaa u jira representative jaamacadda jooga oo shaqadiisuba ay tahay inuu ardayda talentka joogta Africa ama region kasta ha noqdo adduunka ama Americas ha noqdo ama Asia ama Europe, jaamacad kasta waxaa leedahay regional officer u gaara regionkaagaas. Marka adigu haddaad inagu de East Africa haddaynu ku naalno ama Africa badanka hal admissions officer baa jaamacad kasta leedahay. Marka jaamacadda admissions officerka regional admissions officerkaaga ayaad la hadli karaysaa, personal connection baad la samaysan kartaa. markaad applicationka common appka dirtaa common appka markaad dirto waad u sheegi karaysaa, waad sii emphasize garan karaysaa inaad dee jaamacaddan you really interested in the school, you know, markaa si ay ku dee ay ogaadaan inaad dee jaamacaddan aad dee waa run, waa sax midaasi. midda kale way yartay ardayda ka imanaysa gobolka Soomaaliya degto ee jaamacadahan tegaysa. marka jaamacadaha buuga markay artaan arday Soomaali ah oo jaamacadda uu soo apply garanayo wax laga yaabaa inuu yahay ardaydii ugu horreeyay weligood arkaan, marka inay aad ku xiisayaan baa dhici karta sheekadada ama ay curious noqdaan. markaa soco absolutely ha. marka waa jaamacadda markaad personal connectionska aad la samayso admissions officerkaaga, regional admissions officerka way ku caawinaysaa moogta. marka qodobkana waxaan doonaya inaan yara emphasize garayo. intaa markaan ka baxdo this is the exciting part. imika waanad waad sugaysaa, you know, the most anxious part, you know, processkan gebigiisaba waana dee you have to trust in the process, you know, you have to believe in yourself and just wait, you know. waanad sugtaa un imika shaqadii aad qabatay waanad dee kalsooni waanad isku qabtaa. marka waanad imika ka sugtaa decisionska jaamacadahan. marka decisions waxay soo baxaan from January ilaa March way soo baxaan. kuwa ugu dambeeya March dhamaadkeeda ay soo baxaan oo waxay ku xidhan tahay xilligaad xaraysay oo admission muxuu ahaa different admission cycles kan sheegay hore, muxuu ahaa regular decisions iyo muxuu ahaa early action iyo early decision kan sheegay waxay ku kala duwan yihiin. early decisionka waxa deadline-kiisu yahay oo xarayn karta November ay badankoodu ama December 1st ay deadline-ku yahay. marka early decision haddaad xarayso iskuul aad ku xarayso macnaheedu waxa weeye binding, badankoodu waa binding ama commitment baad samaynaysaa. waxaad leedahay iskuulkii haddaad soo aqbashaan iskuulkiinaan imanaya. marka early decision haddaad iskuulka ku xarayso oo ay kusoo aqbalaan by December around Christmas timeka waxaana ay dhahdaan xaggan December ayay soo jawaabaan oo December 15 meelahaasa. marka iskuulkaas hadduu kusoo aqbalo oo arday financial aidna aad xaraysay, financial aidna waxoogaa baan ka yar hadli doonaa, ama deeq waxbarasho aad u xaraysay iskuulkaas oo markaa ay ku siiyaan offerkiina ay ku siiyaan kusoo aqbalaan, financial aidna ay ku siiyaan oo early decision ku xaraysay, markaa committed baad ku tahay iskuulkaas oo kama bixi karaysid. marka waanad withdraw garaysaa applicationski regularka aad xaraysay oo dhan waanad ka noqotaa oo waanad regular decisionka jaamacadda kugu soo aqbashan baad tegaysaa. oo waxaad leedahay markaad common appka applicationada ka buuxinayso waa inaad hal iskuul ka dooratay early decision aad ku samaysaa, iskuulada kalena aad u apply garaysaa laakiin aad ka dhigto late decision iyo waxaas. You don't have to necessarily choose like one college inaad doorato khasab maaha, laakiin early decisionku waa option aad haysato. oo haddii aad og tahay inaad jaamacaddan doonaysa inaad tagto oona jaamacadaha kale xiiseynayna oo day ku yihiin second iyo third option, oo leedahay jaamacaddan waa jaamacaddii fitka yahay aniga ama dee jaamacaddan iska arki karayo naftayda. marka early decision baad ku xarinaysaa, way kuu boost karaynaysaa chanskaaga. waxaad leedahay jaamacaddan waan ku committed baan ku ahay. marka hadday kusoo aqbalaan waa agreement baad saxiixaysaa, waxaad leedahay jaamacaddaasaan tegaya. laakiin regular decisionku isagu ka duwan yahay oo binding maaha, uuna ka dambeeya xilligeeda la xarayo oo admission cycleskiisu isagu January 1st way deadline-ku, waxaanay soo jawaabaan March. oo markaa dadka qaar waxay u prefer gareeyaan inay early decision xarayaan, waxay doonayaan early in the year inay ogaadaan ba jaamacadda tegayaan oo markaa aanay badar gareyn ba jaamacadaha kale tegayaan iyo waxaas ka warwarin. markaas ilaa around March ayay soo baxan decisionsku waa xilliga la sugo. de March marka lagu soo aqbalo ama de haddii aan offer ilaahay kaas iyo waxaad isu diyaarinaysaa xilligii fiisaha iyo preparationkiisa baad gelaysaa. marka iskuulku kula soo xiriirayaa waxaa kula soo xiriiraya badanka international student advisor bay leeyihin wax la dhahdo, kaasaad qofkaasaad xiriir la samaynaysaa. aan kaa dhexgo adigu bal sheeka inoo sheekada waxaad tiri Ethiopia ka soo qaatay taxaankii SAT-ga applicationkii jaamacadda oo soo buuxisay markii hore, bal processka noga sheekada aad ku jirtay. marka anigu walaal waxaan anigu early decision jaamacado waan ku xareeyay, laakiin unfortunately may soo aqbalin. jaamacadihii kale markaa regular decisionskayna sugo ayay noqotay oo ilaa waxaan xareeyay around 20 schools. marka 20 school aan xareeyay, around 5 to 6 schools ayaa offers aan ka helay late March markay ahayd taariikhdu.
exactly March 29th markay ahayd ayaa laga soo aqbalay iskuulka haddeer aan joogo oo Brea College la yidhaahdo oo ku taala gobolka Kentucky ku yaala. Halkaas oon ka barto culumta computer science iyo dhaqaalaha, culumta kombiyuutarada iyo dhaqaalaha ayaan ka bartaa. Markii la soo aqbalay waxaan dee isu diyaariyoon in preparationkii iyo visa iyo hawlihiisii aad gasho ayay noqonaysaa stepka ku xiga aad qaado. oo aniga dee stepka markaa cid i caawinaysa may jirin oo ardayda badanka ka timaada dugsiga abaarso iyaga waxaa sidan horeba u sheegay counselorkooda caawinayo oo magaranaysa ayay stepska la qaadayo dhan ka ugu horaya. marka haddana dib waxay noqotay inaan anigu processkii la qaadayo dhan aan dee dib u baaro oon step by step u raaco oon admission muxuu ahaa international student advisorkii iskuulkayga aan la xiriiro oon halkaa kasii